Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada cashirka koowaad kaasoo aan ku baran doono hoosdhaca e-commerce iyo qorshaha ganacsiga. Cashirkan waxaad ku baran doontaa aasaaska e-commerce, sida uu u shaqeeyo, iyo sida aad maskax ganacsi ugu diyaarsan karto ganacsigaaga cusub ee online-ka, kaasoo aad ka samayn doontid faa'iido fiican oo joogto ah. Maxaad cashirkan ku baran doontaa? Cashirkeena koowaad waxaan ku baran doonaa waa maxay e-commerce, sidee online lacag looga sameeyaa, fursadaha e-commerce ee Soomaaliya, khaladaadka dadka bilowga ah ee galaan, iyo sida aad qorshe ganacsi u samaysan laheeday. Ugu horreyn, aan isla baranno waa maxay e-commerce. E-commerce waa hab ganacsi oo alaab ama adeeg lagu iibiyo internetka. Markii internetka alaab lagu iibinayo hab ganacsi ah ayaa waxaa loo yaqaanaa e-commerce. Tusaale, alaab ayaad ku iibinaysaa TikTok, Facebook, Instagram, online shop oo ah local ama international ah. Social media markaad alaab ku iibinaysid ayaa waxaan dhahnaa waa e-commerce ama waa electronic si online ah. E-commerce maxaa loo qeybiyaa? E-commerce waxaa loo qeybiyaa kow. Local e-commerce waa e-commerce gudaha aad ku iibinaysid alaab. Alaab ayaa waxaa ku iibinaysaa gudaha dalkaaga. Waxaa kaloo jiro international e-commerce. Waxaa waaye waxaad alaab ku iibinaysaa dibadda ama waddan ka baxsan waddanka aad joogtid. Tusaale, adigoo Soomaali joogo waxaad iibinaysaa alaab, waxaad ku iibinaysaa USA. Alaab ayaad China ka keenaysaa, waxaana geynaysaa Mareykan. Waxaad isticmaalaysaa sida Amazon FBA oo ah qeyb aad ka samayn kartid adigoo oo iska diiwaangelinaysid Amazon application-kaasna aad wax ku dhex iibinaysid. Okay. Marka taa waa labada nuuc oo internationalka iyo localka. Waxaa kaloo jiro nuuc saddexaad oo loo yaqaano dropshipping. Dropshipping marka waxaad iibinaysaa alaab aan adigu lahaynin. Alaab aadan soo iibsan, alaab aad gacanta kuugu jirin ayaad iibinaysaa. Tusaale, waxaad website-ka dhex furanaysaa Shopify. Shopify website-ka aad ka dhex furatay, waxaad samaynaysaa dropshipping. Productiyo ayaa sawiradooda soo gelinaysaa. Productyadaas aad soo geliso website-kaaga Shopify-ga, haddii qof alaab soo dalbado waxaad uga raadinaysaa Alibaba ama AliExpress oo kale. AliExpress ayaa marka wuxuu samayn doonaa lacagta qofka marka directly AliExpress ayaa qeyb ka jaran doono, qeybna maaragtay Shopify-ga ayay kugu hari doontaa. Sidaas marka qofka waxaa u deliver gareyn doono Shopify oo kale. Taas marka waxaa loo yaqaanaa waa dropshipping. Marka qeybaha horeeto waxaan focus ka saaraynaa si basic ah inaan fahanno wax la dhaho e-commerce. Ugu dambeynna waxaan ku biyo shubanaynaa inaan Alibaba wax ka dalbano bilow ilaa dhammaad. La soco, qeybaha horeeto waxay noo noqon doonaan hordhac. Haddaba su-aashan ayaan isweydiinaynaa: sidee e-commerce lacag uga samayn kartaa? E-commerce ama ganacsiga online-ka ah lacag ayaad ka samayn kartaa, laakiin waa goorma? Marka aad doorato alaab sax ah, aad hesho supplier ama qofka wax laga soo iibsanayo, qofka aad wax ka soo iibsanaysid oo wanaagsan, aad si fiican u suuq geyso ama xayeysiin fiican aad u samayso, aad dhisto kalsoonida macaamiishaada. Haddii laga helo astaamaha, ganacsigaaga wuxuu noqon doonaa ganacsi guuleysto, taasoo aad ka samayn kartid ganacsi online ah. Waxaan dhihi karnaa wuxuu u baahan yahay nidaam sax ah iyo dulqaad. Fursadaha e-commerce ee Soomaaliya. Weli fursad ma ka jirtaa ganacsi online ah inaad ku samayso dalkii hooyo ee Soomaaliya? Su-aashaas haddii jawaabteeda aan soo koobno waa haa, sababtoo ah internetka iyo baraha bulshada ayaa sii kordhayo. Dad badan ayaa waxay isticmaalaan ama ay mar walba si joogto ah u isticmaalaan social media. Dad badan oo jooga Soomaaliya ayaa online wax ka iibsada. Tartanka oo suuqa markii la fiiriyo weli waa mid hooseeya. Facebook iyo TikTok, dadkana Facebook iyo TikTok ama social media-yaasha kale ayay si xooggan u isticmaalaan. Maadaama marka dadka ay zaid sidaas u isticmaalayaan, welina aysan soo gaarin Amazon, Shopify, Alibaba, AliExpress, macnaha shirkadaha waaweynna aysan weli
aynan target ka dhigan Soomaaliya. Haddii aad alaab loo baahan yahay aadna aad waqti u soo gelisid aad keentid ka samayn kartaa lacag fiican. Fursad fiican ayaa ka jirto ganacsiga online-ka markii la joogo Soomaaliya. Halkan waxaan iskula baranaynaa khaladaadka ay galaan dadka bilowga ku ah ganacsiga online-ka ama e-commerce. Kow, dadka bilowga ku ah ganacsiga online-ka ah waxay dalbadaan ama keensadaan alaab aysan baaritaan ku sameynin. Waxay kaloo sameeyaan qiimo qaldan ayay ku iibiyaan ama aad qaali u ah ama aad u jaban. Dadka qaar alaab ayay keenaan wax suuq geyn la'aan ay sameeyaan. Alaab ayay keeneen suuq geynna ma u sameynayaan. Maybe waxaa laga yaabaa in aad alaab keentay aad rabtid inaad wax ku iibisid statuska WhatsApp-ka ama maaragtay Facebook. Taasna waxay noqonaysaa mid aan suurtagal ahayn. Waayo kama iibin kartid asxaabtaada keliya alaab aad keentay. Waad ka iibin kartaa hal iyo labo laakiin lacag ama dakhli fiican oo joogta ma ka heli kartid. Khaladaadka dadka bilowga ah waxaa ka mid ah inaysan fahmin customer-kooda. Waa muhiim customer-ka aad wax ka iibinaysid inaad diraasaysid aad fahantid ama customer-ka aad target gareynaysid waa inaad faham fiican ka haysatid. Haddaba khaladaadkan aan sheegnay iyo kuwa la mida waa inaad iskaga fogaataa marka aad joogtid e-commerce-ga si aad u guulaysatid. E-commerce mindset maskaxda ganacsiga online-ka ah. Ganacsiga online-ka wuxuu u baahan yahay dulqaad, barasho joogto ah, tijaabin, inaad wax ka baratid, khaladaadka aad gashid inaad wax ka barato, iyo inaad u fahanto ganacsiga inuusan ahayn mid lacag degdeg ah laga sameynayo, laakiin uu u baahan yahay process iyo waqti. Qorshaha ganacsiga ee e-commerce ama qorshe ganacsi inaad u dejisid ganacsigaaga online-ka ah. Hor inta aadan bilaabin waxaad qasab ah inaad isweydiiso maxaad iibinaysaa oo alaab ah, alaab noocee aad iibinaysaa, yaad ka iibinaysaa, qof noocee ah ayaad alaabtan ka iibin doontaa, xaggee ayaad ku iibin doontaa alaabta aad keentid, sidee ayaana u suuq geynaysaa. Jawaabaha ayaa hagi doona ganacsigaaga. Waa qasab inaad su'aalaha aad ku heshid jawaabo. Maxaa xiga? Casharada xiga waxaad ku baran doontaa sida alaab faa'iido leh loo doorto.